muddadii ugu badnayd abid ayaa dalka Soomaaliya uu yahay ra'iisul wasaare la'aan waxaana dad badan ay isweydiinayaan sababta muddadaas ay u qaadatay inkastoo uusan jirin sharci dhigaya in 30 cisho gudahood lagu soo magacaabo haddana waxay ahayd dhaqan muddo soo jiray oo sharci noqday in madaxweyne walba uu 30 cisho ku soo magacaabo Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ku eegaysay muddada ay qaadatay magacaabistii ra'iisul wasaaraha waxa dastuurka uu ka qabo iyo saameynta siyaasadda iyo tan awood qaybsi ee ay leedahay sababta ay dad badan oo daneeya arrimaha Soomaaliya ay uga walaacayaan waqtiga madaxweynaha ay ku qaadatay magacaabista ra'iisul wasaaraha ayaa waxa ugu weyn xilliga yar ee dawladani u hartay iyo go'aanada ku aadan hanaanka doorashada iyo xilliga kala guurka oo dhamaantoodba ka dhigaya in la helo ra'iisul wasaare hawsha dacalka sii qabta mid muhiim ah xilligan waxaase taas ku lamaanan su'aasha ah sababta ay muddada intaasi leeg ugu qaadatay madaxweynuhu inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare xildhibaan Saacadiya Yaasiin Xaaji oo kamid ah golaha baarlamaanka ee Soomaaliya ayaa ka jawaabaysa sababta ay iyadu u aragto sababta madaxweynuhu 30 bari way dhaaftay oo maaragtay u soo magacaabi waayay ra'iisul wasaare anigu waxaan qabaa sababta ugu weyn inay tahay ra'iisul wasaarihii wadanka ayaa waxa lagu riday si khaldan sharciga aan waafaqsanayn laba cali isweydiisay ma jirto sida halaaligeed haduu 2 bilood wadanku ra'iisul wasaare ahaan ilaa 3 bilood u ahaadana wuxuu og yahay in cid ka soo daba tagaysaa aysan jirin khaladaadyadii hore oo maarta gudoomiyihii hore baarlamaanka lagu riday shakhsi bilaadan wadani ah dhibaatooyinkii badnaa oo wadanka laga soo galay ayay horta kamid tahay marka wax hadda la yaabo oo mucjiso ah ani kollow ilama aha sababta wax badan oo khaladaada u soo jeeday u soo joogay oo madaxweyne Farmaajo uu ku kacayo marka sidaas la aligeed ayaan anigu qabaa inta badan ra'iisul wasaareyaasha labaad marka la rido kan koobaad waxa Soomaalidu ay hore u soo aragtay in xal siyaasadeed aysan keenin balse khilaafka meesha uu ka sii socdo kaana ay tahay sababta uu madaxweynuhu aadka uga fiirsanayo xildhibaan Cabdixakiim Macalin Axmed ayaa qaba in howlaha siyaasadeed ee madaxweynaha uu gacanta xilligan ku hayo ay sababtay in waqtigan ay soo gaarto magacaabis la'aanta ra'iisul wasaaraha laba sababoodan aniga ayaan aan isleeyahay waa asal ay ka tahay mid koobaad waxa weeyaan horta shirarkii lagu jiray iyo mashquulka oo xagga shirka dhusmareetri u diyaar garowgiisii iyo asagii waqtigiisa oo xil qaatay mid kan kaleeto oo haddana hadda u baahnaa xiriiro badan iyo howlo badan u baahnaa oo hadda la isugu yimid xamar oo madaxweynayaashii dawlad goboleedyada qaar kamid ay joogaan taas waxay keentaan isleeyahay dib u dhaca maskaxdii iyo waqtigii lagu fakari lahaa inay saameyn ku yeelatay midda kaleetana waxa weeyaan sharciga ayaa waxa ka jirta fusxa oo sharcigii ma xadidayo bil iyo 2 bil iyo 3 bil midna ma sheegay madaxweynaha inuu ku soo magacaabo ra'iisul wasaarihi marka maadaama uusan sharci xadidayaana jirin xoogaana waqti kulul oo shaqadu aad u badnayd oo shirar badan ay jireen oo qadaaya xasaas ay miiska saarnaayeen lagu jiray ayaa waxaan isleeyahay labadaas sababada waxay asal ka tahay dib u dhaca madaxweynaha uu dib u dhacay waxaana filayaa in kasto oo actin uu joogo ra'iisul wasaare ku-xigeenka uu joogo haddana madaxweynuhu inuu ku baraarugsan yahay in dalkii uu ra'iisul wasaare la'aan yahay ayna u baahan tahay in la soo magacaabo mana filayo hadda inay waqti badan oo dheer sii qaadan doonto haddii shirarkan hadda socda ay soo gabagaboobaan waxaa shaki ku jirin inaanay sahlanayn in madaxweyne Farmaajo uu xilligan soo helo ra'iisul wasaare waqtiga kala guurka dalka ka saari kara sidoo kalena isaga ku fikir ah oo aysan iska hor imaanaynin Cabdirashiid Khaliif Xaashim madaxa macadka Heritage ayaa weydiiyay sababta uu isleeyahay waa ay keentay in muddada soo xulista ra'iisul wasaaruhu ay dheeraato horta dastuurku awoodda magacaabista ra'iisul wasaaraha saan ognahay wuxuu siinayaa madaxweynaha cid lalana ma jirto oo taas waa midda labaadna curfiga ama dhaqanka siyaasadeedka Soomaaliyeed wuxuu ahaa in bil lagu magacaabo haddii madaxweynayaasha marka qaarkood haddii waqti ay u baahdaan way dalban jireen in loogu dardaro xoogaa marka waxa uu dhici karta madaxweynuhu 2 midba waa dhici karta maxali ama 3 arrimoodba waxaa dhici karta in uu Soomaali ka dhex raadinayo xilkaas weyn qof uu maaragtay ku habboon oo ka bixi kara oo miisaan iyo culays iyo cilmi iyo caqli kusoo kordhin kara xukuumadda iyo dawladda ama hoggaankaas weyn oo qaban kara in qofkaas raadinayo waa dhici karta waxa kaloo dhici karta inuu raadinayo qof aan culays asaga ku keeni karin siyaasadeed shaqadana ilaa xad qaban kara
isaga un maaragtay maadaama xilli kala guur iyo doorashooyin iyo lagu jiro Soomaaliya qofkii oran jirtay ushaada waxaa loo dhiibtaa nimaad ka qaadan kartid camal inuu raadinayana waa dhici kartaa. waxaa kaloo dhici karta in xaalku ay ku baahday oo waqti aan loo baahnayn ra'iisul wasaare in la bixiyo ra'iisul wasaarihii la bixiyey waqtigii uu sii dhammaan rabo beelihii Soomaaliyeed oo kursigan geeyey oo maaragtay ku habboonaa kulligood ay kursigooda raadinayaan suu yeelo markuu garan waayo inuu suu yeelo garan waayana waa dhici kartaa hawsha ay ku baahatay intaba waa dhici kartaa. marka laga soo tago muddadu inay dheeraatay waxaa kaloo jira in xildhibaanada qaar ay qabaan in ka maqnaanshiyaha miiska kulamadan muhiimka ah ee hadda socda iyo xaaladan kala guurka ah ra'iisul wasaaraha in ay sidoo kale gaf ku tahay awood qaybsiga siyaasadda sida uu sharxayo senator maxamed amiin sheekh cismaan. waxaa xusid mudan in muddada 30 cisho ah curfi ama dhaqan dastuuri ah aysan si cad uga caddayn dastuurka uusan u sheegin qodob ahaan in 30 maalmood gudahood lagu soo magacaabo ra'iisul wasaare laakiin ay tahay curfi ama dhaqan dastuuri ah sidaas daraadeed ay laga maarmaan tahay in la ilaaliyo. waxaa xusid mudan in nidaamka 4.5 ee asaaska u ah awood qaybsiga dalka uu yahay dhaqan siyaasadeed la isla aqbalsan yahay kuna yimid habdib heshiisineed in si cadna uusan dastuurku u sheegaynin in awoodda dalka lagu qaybsado 4.5 sidaas daraadeed waxaa jira mar walba dhaqan soo jireen ah oo loo ilaaliyo sida qodobada dastuurka ee dalka balse inuusan ra'iisul wasaare qayb ka ahayn wada hadallada hadda maalmahan ka dhici doona magaalada Muqdisho ee u dhaxeeya dawladda federaalka iyo dawladda xubnaha ka ah waxay ku tusinaysaa in muhiimadii ra'iisul wasaaraha aysan u muuqan xafiiska madaxweyne Farmaajo isla markaana awoodiisii uu madaxweynuhu isagu ku tasarufayo oo booskii xukuumadda isagu u taagan yahay maadaama xukuumaddu ay tahay tan iyo dheele fulinta nidaamka doorasho ee dalka. waxaa aragti taa lamid qabta xildhibaan Sacdiye Yaasiin Xaaji. horta waxaynu ognahay wadankan waa wadan federalism ah xubnaha ugu sareeya madaxweyne ra'iisul wasaare iyo kullina si 4.5 loo kala qaybsadaa sababta madaxweynuhu uu labada boosba nacam sidoo rabo uu ka yeelaya ani waxaan aaminsanahay inay khaldan tahay ra'iisul wasaare beel buu matalaa waana sababtii keentay labadii madaxweyne ee Puntland iyo Jubaland ay u imaan waayeen Dhuusamareeb asagoo power sharing ee wadanka nacam aysan dhamaystirnayn oo ra'iisul wasaarihii wadanka uu ka maqan yahay sida la adligeed haduu madaxweynuhu aaminsan yahay positionkii ra'iisul wasaarahana adiga buuxi madaxweyne ahaan afkiisa isagu nacam uu matalo waxaa loo jeedaa wala khaladaadyadii hore ayay ka mid tahay waana wax sharci darro ah ra'iisul wasaare wadanka isagoo aan lahayn inuu madaxweynuhu isagoo madaxweyne ah anoo ra'iisul wasaare anoo wax walba ah waana wax khalad ah laakiin waxaan rajaynayaa Soomaalidu inay indho dheer u yeelato. marka laga soo tago howlaha madlan siyaasadda raaran iyo doondoonista madaxweynaha waxaa sidoo kale jirta in waqtiga dawladda ay ka dhiman tahay 4 bil waxaana waqti walba oo uu madaxweynuhu la sii daaho ay keenaysaa quus siyaasadeed sida uu sharxaya Cabdirashiid Khaliif. runtii hadda waqti aan ra'iisul wasaare in la bixiyo aan ku habboonayn oo aad kala guur loogu jiro bilaba ka hareen xukuumaddii iyo baarlamaankii ra'iisul wasaarihii la bixiyey markasta oo madaxweynuhu uu hadda la daahayna waxaa sii culeysyada kusii badanayaan ansixintiisa iyo ra'iisul wasaarahaas soo magacaabi doona iyo dawlad inuu dhiso oo baarlamaanka waxaasoo dhan waqtiga qaadanaysaa waxaas processkaas la isku wada furfurayna waxay culeysii carqalad iyo ku yihiin caqabad shaqadii dalka loo qaban lahaa ama ha noqoto amniga wax laga qabto ama siyaasadda in la dejiyo oo siyaasadda la xasiliyo ama ha noqoto deyn cafiskii ha noqoto waxyaaba badan baa hadda hold on isaga jira ama maaragtay laalan waxay la laalan yihiin waxa weeye xukuumad caretaker oo dastuurka uu qabo inay maaragtay aysan tallaabo weyn sii qaadin inkastoo hadda waxay qaban karaan iska qabtaan baa meeshii jirta marka waqtiga hadda iyo bisha iyo barka hadda loo fadhiyay madaxweynahana shaqadii qaranka ka go'an tahay
hadduu caawa magacaabana ansixinta isaga la ansixiyey iyo baarlamaanka inay xukuumaddiisa ansixiyaan iyo xukuumadda inay magaalada la qabsato iyadoon dalkii iyo shaqadiiba la qabsan baa dhici karta mandatka inuu ka dhammaado marka runtii xaajo gar adagu galay marka laakiin xaajo laga intaa ka badan waqti la gadan kara maaha waa xaajo loo baahan yahay in tallaabo uu ka qaado madaxweynaha ayaa hadda u muuqday inuu xooga saarayo inuu heshiis nooca doorasho ee dalku uu galayo uu la gaaro madaxda maamulada ay isdiidan yihiin gaar ahaana Puntland iyo Jubbaland oo madaxdoodu hadda ay Muqdisho ku sugan yihiin isla markaana ay beesha caalamku isku riixayso in ay xal wada jira ka gaaraan nooca doorasho ee uu dalku aadayo inta uu ku jiro gorgortankan siyaasadeed waxay dadka qaarkii qabaan inuu madaxweynuhu kursiga ra'iisul wasaaraha uu sii banaanaanayo si rajo uu ugu noqdo siyaasiyiinta qaar culays ay uga iman lahaayeen ama xafiiltan siyaasadeed sidoo kale waxa ay taasi fursad u siinaysaa madaxweynuhu inuu go'aanka uu doonayo hadda ku gorgortamo isagoo dawladana kaligiis ka wakiil ah ra'iisul wasaaraha uu magacaabi doonana wuxuu noqon doonaa mid fuliya wixii hortii lagu heshiiyay taasoo sida ay siyaasiyiin badan qabaan yareynaysa isqabqabsi iyo kala aragti duwanaanshiyo dambe oo dhex marta madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha xilligan gabagabada ah mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan ayntaasi ahayd oo warbixintaasi soo jeedinaysay haddaba jagada ra'iisul wasaaraha oo bannaan muddo 40 maalmood iyo sharciyada jira ayuu Haaruun Macruuf ka wareystay gudoomiyihii hore ee maxkamadda Soomaaliya Garyaqaan Ibraahim Iidle Suleymaan horta madaxweynaha waxa sheeg dastuurka awood u siiyay qodobka 9aad faqradda inuu magacaabo ra'iisul wasaaraha laakiin muddo kuma xadidin oo ma oran muddada inta la go'ay inuu ku xadidaa xeerarka kalena kuma xadidin sidaas oo kale ma jiro qodob sharci oo oranaya madaxweynuhu sharci buu jibiyay maadaama muddada inta leeg uu haystay oo soo magacaabo way ra'iisul wasaaraha laakiin waxa loo raaci karaa oo sharci noqon kara habkii iyo hanaankii ay madaxweynayaashii hore ay u soo magacaabi jireen ra'iisul wasaaraha iyo muddada ay u soo magacaabi jireen muddada dheer ee ay soo socotay dowladnimada Soomaaliya ayaa wuxuu isu bedeli karaa maxay sharci isu bedeli kara oo ah caadada mar bay noqotaa sharci marka haddii sharci kale waayo caadada wax loo maamuli jiray ama wax loo hagi jiray ayaa sharci noqotaa oo lagu tilmaamaa curf way marka caadada waan gartay laakiin haddii madaxweynuhu uu ku soo magacaabi waayo 30 maalmood ma waxay ka dhigan tahay qodob sharci inuu jabiyay sharci qoran oo dalka u yaala oo uu jabiyay ma jirto laakiin shuruucdu waxay noqon kartaa mid qoran iyo mid aan qornayn marka shuruucda qoran hadii la yiraahdo ma jiro sharci qoran oo loo jeedo madaxweynaha lagu soo eedeyn karo ama lagu loo karo wuu jabiyay laakiin curfigii dastuuriga ahaa ama dhaqankii dastuuriga ahaa loo mari jiray ayuun baan marin oo aanu habkiisii hanaankiisii ka weecday marka haddii uusan jirin qodob waqti go'aan siinaya madaxweynaha inuu ku soo magacaabo ra'iisul wasaaraha taasi ma waxay ka dhigan tahay intay doonto xilkan uu banaanaan karo maya عند مدحوينها واجب وياه إنه مقعابه وحنا كمرها absolute authority أود ورجع اللي وسكاي يسموها وشو بنو حد بنو كيمياء تاسو محمد كسارية قدر كان لهذا كقيسان تأودها فقردي أفراد تسورك أيها واحد كلام كقيسان تأودها واحد الله يقان limited government حكومة حديثا وشرعي ku xadisan marka waxa loo eedeeyay macquuliyada iyo inta ay macquul tahay iyo sidii hore looga dhaqmi jiray iyo sidii ay tahay waa marka maal hadii ay saas ka socoto wax lagu xisaabtami kara waa firaqa dastuuriga marnaba lama ogola marka saas darteed ayaa ma aha wax iska furan ma weliga leeyahay laakiin macquuliyada iyo madaxweynaha fursad iyo ayuu baahinta loo sameeyay marka maxaa xiriir oo ka dhaxeeya ra'iisul wasaaraha hadii la soo magacaabi waayo iyo doorkii dastuur ee hay'adda fulinta waxa ka dhaxeeya ra'iisul wasaaruhu waxa weeye waa madaxa u sareeya waaxda fulinta oo dawladda saddex waaxood bay u qaadataa waaxda fulinta iyo garsoorka iyo bahalka iyo sharci dejinta markaad eegto qodobka 79 faqradiisa labaad ee dastuurka kumeelka wuxuu leeyahay golaha wasiiradu waa hay'adda fulinta maamulka ugu sareysa golaha wasiiradana ra'iisul wasaarihiiba ayaa horjoogahoodii oo wasiirkoodii koowaad marka macnaheedu waa maxay xukuumad kama dhisan dalku ma laha xukuumad oo ma shaqaynayaan qodobadaas 79
sidaas oo kale ma shaqeynaya qodobada 9 ee ka warramaya xilka iyo awoodaha wasiirka ma shaqeynayaan qodobka boqolaad oo kale oo ka warramaya awoodaha ra'iisul wasaaraha yani waaxdii fulinta hay-adii u sarreysay ee ah ra'iisul wasaarihii iyo golihii wasiirada ee hagayay siyaasadda guud ee dalka ama mid dhaqaale ha noqoto ama mid amni ha noqoto ama mid siyaasadeed ha noqoto ama mid kaleba ha noqotee ayaa meesha ka maqan oo waxaan jirin xukuumad haysata kalsoonidii baarlamaanka oo fulin karta siyaasadaha iminka xukuumadda joogta waa maxay sida ku xusan qodobka 103 waa xilgaarsiin oo waxay ku gaarsiinaysaa xukuumadda rasmiga ahayd ee la sugayay marka madaxweynaha ra'iisul wasaaraha magacaabo in ra'iisul wasaaruhu isagu dhiso 3 maalmood gudaha ku dhiso taa ra'iisul wasaaruhu waa inay qoran tahay ee aslanka maalmood waa gartay markaan kusoo laabano qodobkii magacaabista ra'iisul wasaaraha maxaan ku idhaahdaa maxaad u jeedaa inay xaaladdu noqon karto maalmaha iyo toddobaadyada soo socda arrin dastuuri qalalaaso siyaasadeed oo wadanka ah ama mid hawl fulin oo ah hay-adda fulinta miyaad u jeedaa oo dhibaato ka imanaysa horta fulinta iyo xukuumaddu waa kala gaar baawarka fulinta awoodaha fulinta waxa weeye way sii shaqaynayaan dee waxa shaqeeya shaqaalihii kale dawladda oo dee agtimiyaasha ay u sarreeyaan baa shaqeeya laakiin go'aamada dawladda iyo xeerarka dawladda iyo jihada ay u socdo dawladdu waxa go'aamiya golaha wasiirada ayaa sameeya oo siyaasadda guud ee dalka isaga sameynaya ama ha noqoto mid dibadeed ama ha noqoto mid gudaha noqoto marka hay-addii dhisaysay ama badejinaysay falkinaysay siyaasaddii guud ee dalka ayaa meesha ka maqan marka lama odhan karo yani iminka tusaale ahaan xukuumad waxaa soo socda